القادر عدى إيكت الشيخ صوفي عبد الرحمن وحان كلنا همبليو نقو هي دلكي سيدتكي سدافعة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله. ومع شرفنا عزومات أنا لو عزومي سيد الله يشجع عبد الرحمن حاولنا هاي أبتيز بان هاي وانو شرف روتينا كسر قبلنا هنا حنبليينه مسؤولية داوين الله سبحانه وتعالى ومضي مقع عبد الرحمن الله سبحانه وتعالى مقعده جعله مركا وحانو لنا عبد الرحمن نقو مدكي ومدى صومالية وحوترة مسؤولية دالو ديوين النقضة متكسو بها أنا الدعاء نقول أنا دينا إن شاء الله دامنا يبتعشها دلال بان كلين هاي كرسي بويز كايسكالا يدك الصومالية ونقو مدكي معنا وحوترة مليان كلين هاي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صوماليا الشاشي بنادري حفلتها قروح بدن شرفت بدن وجيادا قروح بدن وعاو هلكا يسوي يمد قبل ويلال له iyo marti sharafta loo timid magaalada fooraheeda kala duwan intiina waxaan ku salaameynaa salaan midda ugu qiimaha iyo qaayaha badan iyo kasoo qaybgalka aad kasoo qaybgasheen xafladda loo dhigayo walaalkeena عبد الرحمن عدى إيكر شيخ صوفي وعاو أمين تاجنا هي همبلية ديسا يو كرامين ديسا يو ويدين ديسا يو شرف ديسا أيا عاو وحى هالكان وإنت وضلا أي كسر قلنا وقوليو أجي مادين هيليان أيضا أي سديدي على غيرسو عبد الرحمن وحى لين هاي تولكا ومضى أبو قاضي ومضى الصوالي ودن خاصة في البنادر iyo khaasatan inta oo ehelkaadi qarabadaadi waxaan ku leenahay xilkaas garabkaadi ilaahay Allah galo waxaan kaloo aan kula darmeynaa ilaahay subhanahu wa ta'ala ummadiisa wuxuu amray cadaalada inaad noqotid mid cadaalada oo mar waliba u taagan mid cadaalad u taagan ummadaas masaakiinta Soomaalida ee dulman caalamka meel kasta jooga inaad bata cadaaladooda aad u noqotid koow taas ayaan kula darmeeyaa حفلة عاود ضدنا يقدم بيا وربما تاجري أو الكوهم باليران تركي أو كجعل يو صومالي كجعل بعميش الجوكتا أو كوهم باليران سه إلهي سبحانه وتعالى وعن كابلينا هوشا أو إلهي فوق سوق هذا إلى بقتين حلمان أو برلمان دولة الصوماليين أو إلهي بفوق سوق ولا كوسيا إلهي بفوق عيد كلا كوما جين الناس I believe أيها وعن كله قرب كذي الله قالوا عبد الرحمن عندك في عيره عيوب في عيره ومد هذه فيري ضدك هذه فيري توك هذه فيري خير حمر إيو صواري لما أديك سوريان قرب كذي أنا قولك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدكن واجهة سيئة هذين مفرح حمرنا هاي عاوة وإن صحية الله هذا شان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عاوة حفلة قارئة وحيلو قبني ويلكن حلدبين كعصب الدولة الفدرال كأه صوماليا قصة بحي عبد الرحمن عبد وحلاهي عبد الرحمن عبد حلكا وقاضي الشعب كالصوماليا أي أدورتين إلهي كبوليو إلهي كبوليو منكي حلكي سسد الله دورتي وقلتنا الله كدبو إلهي هو دبيريو إلهي نبتجريو إيو عقلي إيو مسؤولية حكوسيو أنا قاعد شاليدا بنادري أو شغلنا نورد أمريكانا وحنا موجودين تاجرو موقتا أو هيدي هو
waxaana aaminsanahay inuu cabdiraxmaan yahay xilkaa loo doortay ninkii ka soo bixi lahaa. waxaanu leenahay cabdiraxmaanow mas-uuliyaddaa lagu doortay annaga oo jaaliyadii North America ee shacabkii ku doortay codkiisii ku hadlayna waxaanu ku muujinaynaa taageero muuqata oo af iyo adinba leh. waxaana kuu garab taagannahay mas-uuliyaddaa lagu doortay. waxaan leenahay ilaahay ha kuu dhib yareeyo mas-uuliyaddaa lagu doortay. ilaahay ha kaa dhigo qofkii kursigaa uu maanta tegey inuusan ka degin oo kalsoonida shacabka ay u qabaan mar walba ha lagu celiyo la yidhaahdo inuu ilaahay kaa dhigo ninkii Soomaaliya qolada maslaxada shacabka Soomaaliya ka shaqayn lahayd ilaahay inuu ka mid kaa dhigo ayaana kugu ducaynaynaa. waxaana kuu muujinaynaa annaga oo magacii jaaliyadda North America meesha lagaa doortay shacabkeedii ah waxaan kuu muujinaynaa taageero muuqato oo hiil iyo hoob ah caawa. marka waxaan leenahay ha guulaysto cabdiraxmaan ha guulaysto mas-uuliyaduu qaaday ilaahay ha u dhib yareeyo. ilaahay hoggaankii muxuu ah lagu dayda ha ka dhigo. innagana dadka ka soo qayb galay waxaan leeyahay dhammaantiin ka soo qaybgalka aad ka soo qayb gasheen eed waqtigiina qaaliga aad soo geliseen kalsoonida aad wiilkiina u qabtaan alla ilaahay gamkiisa ajir iyo xasanaad ha idinka siiyo. ilaahayna idinku guuleeya. waa mahadsantiin. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. runtii caawa waxaan filayaa inaan farxadda la qaybsanno cabdiqaadir inaan la qaybsanno farxadda dhammaanteen. runtiina waxaan ku faraxsanahay sida quruxda badan ee u soo buuxiseen hoolka idinka oo kalgacaylka aad u haysaan aan wada aragno. annagana sidoo kale ayaan runtii aan ku faraxsannahay inaan la qaybsanno wiilka dhallinyarada ee yar ee maanta baarlamaanka soo galay. insha allah waxaanu rajaynaynaa inuu noqdo kuwa ummadda Soomaaliyeed meesha ugu ku toosin lahaa. sababtoo ah waxaa weeyaan dhibka jira waad ogtihiin. marka ragga dhallinyarada ah ee bisil ee aqoonta loo baahan yahay. marka waxaan rajaynaynaa aqliga cusub inaan maanta aan ka faa'iidi doono mustaqbalka. waxaana leenahay guulayso sababtoo ah waa nin dadaalay dadaalkiisaas. waxaan u leenahay insha allah ilaahay waxaan kaaga baryaynaa ilaa madaxweyne inaad ku gaadho aad u noqoto ummadda Soomaaliyeed. waayo madaxweynaha 4.5 waa laga bixi doonaa iyo waxaan saal iskula daba wareega ah. insha allah waxaa imanaysaa one man vote baa imaanaya. kaas waxaan rajaynaynaa cabdi inuu noqdo ama madaxweyne ama ra'iisul wasaare oo ummadda uu hago. waayo sababta isagoo nin dhallinyaro ah oo dadkeen dhulkeenna wixii ka jiray ayuu aqoontiina ku gaadhay siyaasaddiina ku galay maanta isagoo aan 30 gaadhin. ninkaa maxaad u malaynaysaan marka haddii ilaahay cimrigiisa u daayo waxaan rajaynayaa inuu madaxweyne noqonayo. waxaana leenahay walaal kor u soco dadka ummadda Soomaaliyeed kii hagi lahaa yaan kugu ducaynaynaa inaad noqotaan doonaynaa. midka jooga Boosaaso iyo midka jooga Kismaayo Raas Xasan iyo Raas Yamoodi ayaa baarlamaanka ugu jirtaa oo ugu jirtay qoys iyo reer. macnahaas ninku 4.5 kana waxaan doonaynaa rag dhallinyaro oo dumiya gidaarkan meesha la dhigay ee baas in la dumiyo insha allah ilaahay ka baryeena. adigana waxaan noqonaysaa darbigaas ninkii dumin lahaa ayaanu ku soo jeedinaynaa. waxaan leenahay guulayso. waana kugu faraxsanahay maanta dadka meesha fadhiya waa dadkii kuu soo baxay oo guryahooda kaaga soo tegay uu yeelay qalbigaada maartay u imaaday iyo farxadaada u imaaday inay kula qaybsadaan. marka waxaan ku leenahay soo dhawow insha allah ilaahay ha kuu guuleeyo
mas-uuliyaddu way adag tahay ilaahay kugu goolayo midna ogow ninku nin xil qaaday eed qaad baa layidhi nin xil qaaday eed qaad in ay eed badan imaanayso waa xaqiiq lowlaa waxa aad qabanayso ka run sheeg ummadda soomaaliyeedna adiga ayaa mas-uuliyaddeedii qaaday maalinkii lagu dhaariyo mas-uuliyadda ummadda soomaaliyeed oo dhan baad ka tahay ama ha jooga jigjiga ama ha jooga kismaayo ama gaaris waayo waxaan kala nahay ma jiro marka waxaan leeyahay noqo hoggaankii ummaddaas dhallinyaradii u soo baxday ee leego oo kale iyo tuwa ku horreeyey oo kale inaad noqotaan kaa rajaynaynaa gidaarkaasna la dumiyo 4.5ka guulaysaan ku leeyahay guulayso waad mahadsantihiin dadkiina ka soo qayb galay dhammaan gabadh iyo wiil mudanayaal iyo marwooyin aad baad u mahadsantihiin howlkaad soo buxiseen runtii aad baan ugu faraxsanahay aniga nafsadayda anigoo la qaybsanaya wiilka adeerkaan u ahay abtigan aan u ahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu qaabeyna waa siyaasad qurux badan maasha Allah waxaan isugu imaanay inaan u hambalyeeyo walaalkeena xildhibaankeena cusub oo loo matalaya baarlamaanka reer banaadir oo dhan gaar ahaan alshaashi maasha Allah waxaan leenahay hambalyo ilaahay kula garab galo ilaahay kaaga dhigo shaqadaas shaqo fudud oo ma aragtay dadkiisana wax u taro dalkiisana wax u taro ilaahay kaaga dhigo fariintaan u dirayno walaalkeena cabdiraxmaan waxa waaye dhalinyarada inuu wax u qabto haddii la arko qof ma aragtay waddanka waxaa wax taro dhalinyaradaas inuu xooga saaro siduu shaqo ugu abuuri lahay iyo dhinaca tacliinta fariintaas walaalkeena aan u diraynaa cabdiraxmaan dhinaca waxbarashada inuu xooga saaro oo ilmaheennii uu ku dadaalo intuu kursigaas uu ku fadhiyo siduu wax u bari lahaa aad noo idin salaamayaa waqtigii waxaa noola qabtay 2 daqiiqo iyo 1 daqiiqo iyo far waa iska sii hadli laheen waa iska kaftami laheen laakiin hala soo gagaabaya wiilkii TV-gana waa noo sheegay marka aad waa idin salaamayaa ilaahayna ma aragtay walaalkeena meeshaas oo shaqadaas loo dhiibtay oo loo egmaday inuu ilaahay ku garab galo waa u ducaynaynaa waana u hambaliyaynaynaa